maxamed nuur kanadu ka soo qoro waxa uu leeyahay kitaabka quraanka ah dumarka meher ma looga dhigi karaa iyo faysal waxay ka soo qortay ceerigaabo waxa ay leedahay bal ka waran lacagta qaadka ma loo qaadan karaa meher ninkii qaadkeedinaya hadduu meherisiiyo lacagtii ma qaadan karaa Umar Xasan Hargeys uu ka soo qoro waxa uu leeyahay xukuumadda ayaan shaqo ka doonay waxa la inta shaqo lagu helayo ama boos lagugu qoro bal iska sii qaada mushaharkan waan wadaa mushaharkii waxna ma qabto ma saxba alxamdulillaah والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عبد الرحمن عثمان كان ذو كسو قرا وحا أولي وحا أن كدارتي إنانا سيجار كاستعمال ولا استعمالي محيرة waxaad yeelaysaa horta sigaarkiis ka daa waa xaaraan isticmaalkiisu cabitaan kiisu iyo ka ganacsigiisu waa xaaraanta ilaahay daraadii uga hadh caafimaad iyo cuud iyo xoolaba uu ku siin waa waajibtaas waajibka labaad ku saaran waxa weeye kol haddii wixii aad ka dhaaratay aad ku noqotay kafaara gud 10 miskiin dhargi marba wax wada siin kartaa dhowr jeerna waad siin kartaa laakiin 10 tiradu ha ahaato haddii aad kari weydo 10 miskiin inaad wax siisana 3 maalmood baad soomi sida kafaara gudka quraanku ilaahay uu ku cadeeyay caasha faransiiska ka soo qorto waxa ay leedahay qof baan dahabka kala iibsanaa laakiin lacagahaanu marba wax kala qaadanaa sidee dahabka loo kala iibsadaa jawaabtu waxa weeye marka dahabka la kala iibsanayo waxa waajiba in la kala qaato lacagta dahabku amaah ma galo sidoo xadiidka saxiixa inoogu cadeeyay rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam dahabkiiyo lacagtii haddii la isku iibinayo dabcan way kala badan karaan laakiin waxa shardiya haa'an wa haa'an yadan biyadin ho okay dahabkii waa kan aduguna lacagta kee haddii aad doonayso inaad dahabka sii qaadato amaahba waxaad u sii haynaysaa amaah maahee waa amaano qofkii dahab lahaa waad ka sii amaanaysan dahabkii waad ku sii xaragoon laakiin dee amaanaad ugu haysaa hadhow markay lacagta ku dhammaystiratana dee kala iibsada waqtiga iibku ha dhaco sidaa cagsigeedna waa samayn kartaano hadduu diido inuu dahabka ku amaanaysiiyo ood usii hayso adiga lacagta ku ururso marka ay gaadho lacagtu halkaa doonaysay dahabku haye ka iibso ka soo qaado islaamkeenu wuxuu diidana dhib baa ku jira waqtiyadan inflation iyo sicir bararku dhacay waxyaabaha ugu badan ee la isku qabsado waxa kamid ah lacagayo la isku sarifo la kala qaadan dahab iyo lacag la isku iibiyo oo aan la kala qaadan markaasuu qiimo kala kaca halkaas la isku qabsadaa maxamed nuur kanadu ka soo qoro waxa uu leeyahay kitaabka quraanka ah dumarka meher ma looga dhigi karaa jawaabtu waxa weeye haa waa kitaabkii quraanka lacagna waad ku soo iibsanaysaa adiguna waad sii iibin kartaa culimaduna waxay isku waafaqsan yihiin wixii maal uu ka soo baxayo lacag ay ka soo baxaysa iyo xoolo meher wuu noqon karaa ashadaaqu yakunu aqalla mutamawal meherku wuxuu noqdaa wax maal laga dhigo waxa u yarba nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ninkii doonayay gabadha loo meheriyo iltamis walaw khataman min hadid fargal dahaba ha ahaadee bal wax aan inanta meher uga dhiga raadi fargal dahaba waynu garanaynaa inaanu $1 nuskiina gaadhin marka waa laga dhigi karaa misxafkii ama kitaabkii quraanka meher iyo faysal waxay ka soo qortay ceerigaabo waxa ay leedahay bal ka waran lacagta qaadka ma loo qaadan karaa meher ninkii qaadkeedinaya hadduu meherisiiyo lacagtii ma qaadan karaa jawaabtu waxa weeye haddaad og tahay lacagtani inay tahay tii qaadkoon meel kale laga keenin dee meher ma noqonayso meher waxaad u qaadan kartaa wixii xalaala shayga xalaasha abay tahay qofku inuu isticmaalo dadkana siiyo hadday isagiiba ka xaaraamahayd dee adigana xalaal kuma qaadka iyo sigaarka iyo badeecadda iyo daroogada iyo maanta dhibka ay ku hayaan ummadeennana waynu ogna lafahaantiisana waa shay mukhadaraada oo isbedel ku sameeyo qofka iyo maskaxdiisa oo sakhrad ku keeni kara
isla markaana dhibaatooyin aada u fara badan buu leeyaho dhaqaale iyo caafimaad iyo cibaadaba iyo qoysba. mushkiladaha waddanka inaga haysta waxyaabaha ugu badani waa qaadka. islaamkuna addararu yuzaal, qawaacidda shareecada waxaa ka mida laa darara walaa diraar. marka wixii dhib leh waa laga dhex qaadaya ummadda, dhibka u weynba weeye. sidaa daraaddeed in laga baac mushtareeyo iyo in la cuno iyo in la sasiiyo inta midna ma banaana. fatwada caalamulislaami culimadoodu markii ay shireen ay soo saareenna waa taa weeye. waa laga yaabaa culimada qaarkood inay khilaafeen, laakiin aqlabka iyo xukunka lagu bineeyo waa caynka ah. markaa wax xalaalay sii dheh, isagana iska daabaad kula talin. cumar xasan hargeys uu ka soo qoro waxa uu leeyahay xukuumadda ayaan shaqo ka doonay. waxaa la yidhi inta shaqo lagu helaya ama boos lagugu qoro bal iska sii qaada mushaharkan. waan wadaa un mushaharkii waxna ma qabto, ma saxba ah? ma sax maaha. waxa adigu aanad yeelaynin in lagugula dhaqmo, ummadda xoolaheedana ha kula dhaqmi. hadduu imika ninkuu yimaaduu ku yidhaahdo shaqaan kaa raadinayaae bal intaad shaqada ii helaysa mushahar ii sii qor, maxaad odhan lahayd? dee adeer sidaa laguma ceeshee magaalaysaad odhan lahayd. sidaa laguma ceeshee qof aan wax qaban lacag la iskama siiya, maxaan kugu siiyaa? markaan shaqo kuu helo ayaa mushaharku siin doonaa, saasaad odhanaysa. sidaasunbay ummaduna ku leedahay. marka qofka mas-uulka ana waajib waxa ku ah hantida ummadda inuu ilaaliyo, oo isaguna aanan xaaraan ku cunin, dadkana xaaraan ku siinin. sida qofka gaarkaa wixiisu ay xaaraan u yihiin lagu xadgudbaa, hantida ummaduna waa la mid, way kasii khatar badan tahayba. agoontii, ducafadii, dadkii waala ayaa wax ku leh oo aan kuba saamixi karaynin hadhow haddii aad tidhaahdo waan idin saamaxana. markaa qofku xooggiisa iyo xoolihiisu wax ku qaadan karaa, maskaxdiisa, muruqiisa, wixii uu ku shaqaystay iyo cilmigiisa, ama xoolihiisu ay u shaqeeyeen sharkadiisu ay usoo saartay. laakiin qof aan waxbaba qaban inuu wax iska qaato oo u qaato mushqaayad ahaan ma banaane, waa xaraam. ilaahayna wuxu uhi walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil, xoolaha dhexdiina ha ku kala cunina xaqdarro. marka waa qofku inuu xalaal miirto, waxaa ku jirta cibaadadiisu inay ansaxda iyo ducadiisa, dadkiisuna ay u hagaagaan. allah hayna hanuuniyo oo haynaga hagaajiyo oo hayna horumariyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. shirkadda telesom waxay qiimo dhimis ballaadhan kugu samaysay internetka moobilka. internetka bilaa ayaan xadidnayn waxaa laguu sameeyey qiimo dhimis boqolkiiba 25. hadda waxaad ku helaysaa $15 oo keliya. shirkadda telesom waxay sidoo kale boqolkiiba 20 qiimo dhimis kugu samaysay internetkii iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday. hadda waxaa lagaga dhigay oo keliya $20. si aad ugu shubato internetka aan xadidnayn waxaad ka wada helaysaa dhammaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah. macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaadhan ee laguu sameeyey.